Hadday markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka ku soo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waaniga Cabdifataax Ibraahima xagga nagala socotaana waxa weeye Somaltech. maanta waxaan ka hadli doonaa cashar kale oo muhiim ah oo very important ah oo aad u muhiim ah oo maxay ahayd ku saabsan qaabka maxay ahayd haddii computerka uu kaa cuslaado ama RAM-ta isticmaalaysaa ay aad u culus tahay oo ay yar tahay kadibna computerka culayska dareemaysid sida aad u fududeyn karaysid oo aad u isticmaali karaysid flashtaada RAM ahaan si RAM ahaan aad u isticmaali karaysid ayay maanta casharkeena ku eegaynaa. casharkan waa muhiim, wuxuu muhiim yahay qof kasta jecel inuu isticmaalo RAM-tiisa RAM ahaan oo kale. Okay, saad u bilowdo maxay ahayd inaad isticmaasho flashtaada RAM ahaan waxaad samayn doontaa waxaad tegi doontaa this PC kadibna waxaad tegi doontaa flashta right click baad siin doontaa flashteena. marka hore hubi flashtada inaad format gareysay, marka horena waxaad hubisay inaad computerka soo gelisay flashta. Okay, flashta waxaad tegi doontaa xaggay ku qoran tahay propertieska. Okay, propertieska markaad tagto waxaad tegi doontaa halkaa ku qoran tahay ready boost. markaad ku dhufan doontaa iminka waxay select gareysan sida arkaysid do not use this device macnaheedu waxa weeye waxaan isticmaali karnaa inaan wax ku kaadsano marka uma isticmaali karnaa inay systemkeena inoo maxay ahayd fududeyso. kadib waxaan oranaya use this device kadib waxaan ku dhufanayaa apply. markaas aad arkaysid ready boost is configuring your cache ka la configure garanaya macnaheedu waxa loo sameeyaa in aad u isticmaali karaysid ready boost ahaan oo computerka ay kuu fududeyn karayso. kadib waxaad ku dhufanaysaa okay sida xagan ka arkaysid waxaad arkaysaa maxay ahayd in ay loo isticmaalayo flashtaydii RAM ahaan ama maxay ahayd ready boost oo computerkaaga ay kuu fududeynayso. okay haddii doonaysid maxay ahayd inaad ka noqoto computerkaaga imika uma isticmaali karaysid maxay ahayd in file ku kaydsato ama files aad ku qaadato uma isticmaali karaysid. saad taw samaysid waxaad samaysaa right click baad siin doontaa si aad uga noqotid macnaha oo aad u isticmaashid flashtada sidii hore aad u isticmaashid. waxaad dooranaysaa propertieska kadibna waxaad tegi doontaa maxay ahayd ready boost kadibna waxaad dooranaysaa do not use this device kadibna waxaad dooranaysaa apply kadibna processkii way samaynaysaa waxay kugu celinaysaa sidaadii hore. okay marka flashtada sida hore u isticmaaltaa sida arkaysid iminka flashtii waxay nagu noqotay sidii hore. okay qaabka yar fudud waxaad samaysan kartaa haddii computerka uu kaa cuslaado inaad maxay ahayd isticmaali karaysid flashtaada ama pen drive-kaaga u isticmaali karaysid maxay ahayd RAM ahaan oo macnaha computerkaaga ku fududeyn karayso. okay haddii videogan aad u aragto inuu ku yahay helpful ama uu ku caawiyey fadlan waxaan kaa codsanayaa asxaabta la wadaagto sidoo kalena channelka kusoo biirto oo subscribe saarto. waa mahadsantihiin dhammaantiin casharkan ku kulmayno saasi nabadgelyo.